السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال نبض ميلبو جوجتان واحد كسر دواتان قضبة قرن جوج نيوز وركن وحا وين مدحونها دولة فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجة وقاري dalkaasi South Sudan dhinaca kale madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Abdullaahi Dani ayaa kulamo siyaasadeed ka bilaabay Nairobi kadib heshiiskii doorashada dalkaasi Soomaaliya kadib markii uu shalay ka dulay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya degmo ka tirsan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa saaka lagu arkay qof meyd ah oo si arxan darro ah loogu dilay wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo saacadaha soo aadan laga yaabo inuu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada qodobada wararka caalamkan waxa ugu waaweyn madaxweynaha dalkaasi Faransiiska oo u gafay diinta Islaamka waxay ahaayeen qodobada wararkeeni ugu door koron iminkana u diyaar garooba warkeeni oo fidsan kala daawada isku soo naqasho haboon hadii uu yahay markii ugu horeysay ee aadna soo booqato nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada ku xiran si aad u hesho wararkii u dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka aan ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay munaasabadda heshiiska nabadeedkaasi dalkaasi Suudaan ayaa gaaray magaalada Juba ee caasimadda dalkaasi Suudaanka Koonfureed madaxweyne Farmaajo ayaa ka mid ah madaxweynayaasha martiqaadka ka helay heshiiskaasi nabadeed ee u dhaxeeya dawladda aan walaalaha nahay ee Suudaan iyo kooxda hubeysan ee galbeedkaasi Koonfurta Suudaan dawladda Suudaan Koonfureed ayaa casuumaad rasmi ah ku saabsan munaasabadda waxay haatan u soo dirtay madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida lagu xusay doorka diblomaasiyadeed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka qaadatay wadaxaajoodka nabadeed ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay filla Soomaaliya qoraalkan ayaa intaasi lagu sii daray Soomaaliya waxay higsanaysaa diris wanaag iyadoo oo ay ka shaqeynayso nabadgelyada gobolka Geeska Afrika si loo xoojiyo iskaashiga wax wada qabsiga iyo horumarka shucuubta walaalaha nahay markaan magaalada Nairobi madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Abdullaahi Dani ayaa jimcihii shalay gaaray magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya halkaasi uu ka bilaabay kulmo siyaasadeed Dani ayaa ilaa hadda Nairobi kula kulmay siyaasiyiin dhowr ah oo hanqal taagayo hoggaanka dalkaasi kuwaas oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Nairobi siyaasiyiintaasi ku sugan halkaasi waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo siyaasiyiin horey xil ugu soo qabtay dalka sidoo kale wararka aan ka helino Nairobi waxay sheegayaan in Dani saacadihii ugu dambeeyay uu halkaasi kulamo kula qaatay qaar ka mid ah wakiilada ka socda dalalka daneynaya arrimaha Soomaaliya xubno ka tirsan dawladda goboleedkaasi Puntland ayaa inoo sheegay in madaxweynaha uu xalay kulamo xubno ka mid ah sirdoonkaasi dawladda Imaaraadka Carabta uu la qaatay wararka aan ka helino magaalada Nairobi dalkaasi Kenya ayaa intaasi ku daray in halkaasi uu ka bilaabay abaabul siyaasadeed oo xoog leh kaas oo ku wajahan doorashada Soomaaliya 2020 dhinaca kale madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sida wararka aan ku helino isna ku wajahan maalmahan soo aadan magaalada Nairobi dalkaasi Kenya siyaasiyiin badan oo mucaarad ku ah xukuumadda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana nolol adag u ku jiro doorashada soo socota Soomaaliya ayaa haatan ba ku wada sugan magaaladaasi kulamada siyaasadeed ee ka bilaabeen Kenya ayaa ku soo aadeyso iyadoo toddobaadkii tagay magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir lagu jaangoonayo arrimaha doorashada Soomaaliya magaalada Muqdisho wararka aan ka helino degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafadda Salaam ee waaxda Xawataako ayaa la sheegay in saaki halkaasi lagu arkay qof meyd ah oo la dilay si gaar ah goobtaasi meydka lagu arkay ayaa u dhaxaysa isgoysida Black Sea iyo Baar Uwax iyo wadada Sodonka ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray halkaasi oo lagu arkay meydka qofka meydkiisa lagu arkay goobtaasi ayaa la sheegay inuu yahay qof rag ah goobjooga ayaa u waramay qaranjoog news ayaa sheegay in ruuxa la dilay dusha laga saaray baaqado ciidamada ammaanka ayuuna sheegay goobjoogahaasi inay goobta ka bilaabeen baaritaano balse lama sheegin ilaa ay hadda cid loo soo qabtay dilka ruuxaani sidoo kale wali lama aqoonsan qofka la dilay qamiistii la soo dhaafay aaga saaki lagu arkay meydka ruuxaasi waxa ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday askar ka tirsan ciidamada ammaanka
magaalada muqdisho ayaan ku guda jirnaa. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo golihiisa cusub ee wasiirada. Waxaa soo dhamaaday kulamo siyaasadeed oo gaargaar ah kuwaas oo Roble ka waday magaalada muqdisho maalmihii u dambeeyay. Kulamadaasi ayaa la xiriiray dhismaha xukuumadda cusub. Wararka ay helayso Qaranjoog News ayaa sheegaya in 48 saacadood la soo aadan uu ra'iisul wasaare Roble ku dhawaaqi doono golihiisa wasiirada. waxaana ay wararku intaa ku darayaan in xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaaraha Roble ka dhex muuqan doonaan qaar ka tirsan wasiiradii xukuumaddii hore ee dhacday ee Xasan Cali Kheyre iyo kuwa cusub. Markan waxaa soo gaaray akhbaraadka caalamka. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa difaacay nidaamka cilmaaniga ah ay ku dhaqmaan dalal badan oo caalamka ka mid ah, isagoona dhanka kale weeraray diinta Islaamka ah oo ku tilmaamay mid aan la jaan qaadin karin dunida casriga ah. madaxweyne Macron ayaa ku dhawaaqay qorshayaal uu doonayo inuu ku xakameeyo diinta Islaamka iyadana wadankaasi ay ku sugan yihiin muslimiin badan. diinta Islaamka ayuu sheegay in madaxweynaha Faransiiskaasi in ay dib xoogan ku hayso caalamka si gaar ah wadanka Faransiiska una doonayo in uu xakameeyo. muslimiinta Faransiiska ayaa lagu qiyaasaa ilaa 6 milyan oo ruux kuwaas oo haatanba wajahaya xaalada cabsi ah. dadka ka hadlay wararkaasi ka soo yiri madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Macron waxa ay ku sheegeen in uu qarsan waaye carada iyo nacaybka uu hayo diinta Islaamka. ayaan ku soo gabagabaynaa wararkeena ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. intaan warkan war lamid ah ku wada kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. fadlan haddii uu yahay markii kugu dhashay channelkan soo booqato subscribe inoo saar gamleekana furo si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. wixii tusaale iyo talaba commentiga noogu soo reeb mahadsanid daawade.